Assalaamu calaykum dhammaantiin asxaabta qaaliga ah kusoo dhawaada muuqaalkan oo aynu kaga hadli doono qaybo kale oo ka imiday qaybta commentiga su-aalo kale oo inaga soo gaadhay ayaan rabaa maanta inaan halkan kaga jawaabo su-aalahaas oo ay badankoodu isku mid yihiin laakiin dadyow kala duwan ay soo qoreen waxaanse ka soo qaadan doonaa un keliya mid mana soo dhigi doono sidii muuqaalkii hore oo kale aynu mid kasta sawir ka soo qaadanay soo dhigi mayno laakiin waxaan kasoo qaadan doonaa un keliya muhiimadda iyo su-aashu sida ay u dhacayso. Muuqaalkan waxa kale oo aan idinku tusi doonaa jawaabta ama codbixintii aan soo dhigay maalinta dhaweyd qoraalkii aan soo dhigay jawaabtii kasoo baxday sidii ay codadku u kala badnaayeen iyo insha allahu barnaamijyada aynu kusoo dari doono kanaalka wixii cusub ee qaybta tiknolojiyadda ah. Su-aasha ugu horeysa waxay ka timid walaal kusoo qoray commentiga ayaa su-aashiisu waxay ahayd gaadhiga isagoo socda sidee ayaan geer hoose u gelin karaa ama aan ugu bedeli karaa ama aan geer sare ugu bedeli karaa, yacni gaadhigii oo ku socda number 5 sidee ayaan geer number 2 ama 1 u keeni karaa. Saas ayuu ka wada ayaan filayaa. Su-aashani marar badan ayay soo noqnoqotay. Waxaan rajaynayaa haddii ay maqlayaan dhalinyartii su-aalaha soo qortay in ay ka bogan doonaan jawaabtan. Jawaabta su-aashani waxa weeye gaadhigu haddii uu socdo oo aad rabto inaad geer kan ka sarreeya aad ku socoto waxay ku xidhan tahay kolba xawaaraha aad ku socoto. Gaadhiga sidiisaba waxaa lagu bilaabaa ama uu ku dhaqaaqaa geerka number 1. Geerka number 1 marka aad rabto inaad ka bedesho aad 2 inaad u bedesho ama aad u rogto rabto marshada ama geerka waxaad u baahan tahay inaad waxoogaa gaas siiso ama leverka xawaarihiisa yara kordhiso. Marka aad shanqadha gaadhiga maqasho ama xiinka gaadhiga aad yara maqasho waxaad dareemaysaa inuu geer kii hore ka badan uu kaa rabo, markaas ayaad 2 gelinaysaa. Marka 2ga cabaar ku socoto isagana sidoo kale codkii hore ka yara duwan ama ka weyn buu sameynayaa waayo waxa la gaadhay xilligii aad u bedeli lahayd geerka number 3. Number 3 markii aad geliso waxaad ku soconaysaa cabaar, marka 3 waxaad ku socon kartaa ilaa 50 km/h ayaad ku socon kartaa. wixii ka badan waxay iyaduna noqonaysaa number 4 baad isticmaalaysaa. wixii intaa ka sii badan 80 iyo wixii ka sii badan ama 70 iyo wixii ka sii badan waxay noqon doonaan kulay 5 iyo wixii ka sii sareeya. Marka gaadhiga geerka aad ku soconayso kolba waxay ku xidhan tahay xawaaraha aad rabto inaad ku socoto. Su-aasha dhinaceega kale haddii aynu iska dul taagno waxa weeye waxay ahayd qaabkee ayaan anigoo number 5 ku socdo oo gaadhigu xawaare 100 ku socdo ama ka badan xawaare aad ku socdo sideen u keeni karaa number 1. taas waa ay adag tahay isagoo gaadhigu xawaare xoog ah ku socda. gaadhiga number 1 ha isku dayin inaad keento, waxaad samaysaa sida u kala horeeyaan oo markasta aad rabto inaad geerka soo dhinto oo isagoo 5 ku socda aad 4 keento xawaaraha intii hore ka yaree kadib 4 keen. haddii aad rabto inaad 3 keento xawaaraha intii hore ka yaree kadib waxaad sii bedeshaa 3 iyo wixii ka sii hoose. haddana xawaaraha intii hore ka sii yaree 20 iyo wixii ka hooseeya markaad keento 2 keen kadib istaag. laakiin gaadhiga isagoo oo xawaare xooga ku socda ha isku dayin marnaba inaad number 1 ku soo celiso. markasta oo aad gaadhiga xawaarihiisa rabto inaad geerkiisa rabto inaad geer hoose geliso xawaaraha yaree. markasta oo aad rabto gaadhiga inaad xawaarihiisa ama geerkiisa mid sare aad ku bedesho xawaaraha intii hore ka yara badi kadib geerka sare geli. su-aashaas saas ayaan filayaa inay jawaabteedu kuley noqon doonto. su-aasha kalena waxay tahay sidee loo kantaroolaa sheelarada ama shukaanta, noo sharax. walaalkaasina wuxuu soo qoray ama waxay soo qortay hadda magacyadoodii ma xasuusto keliya warqad ayaan kusoo qortay su-aalaha sida loo maamulo sheelarada ama shukaanta gaadhiga. kuley maamulkaasi waxay ku xidhan tahay qofka mataqaanaaye inuu labadiisa gacmood miisaamo. marka aad autobaanka ama highwayga socoto waxa aad iyo aad u muhiima inay gacantaadu miisaaman tahay oo aanay dhaqdhaqaaq sameyneyn. haddii aad rabto inaad wadada kugu xigta gashana tartiib waa inaad indhahaaga un ku weeciso gaadhiga. uma baahna inaad sidii adigoo meel laabada ama goolada ka laabaya inaad shukaanta wada duubato, looma baahna waayo halis baad ku gelaysaa. marka ha isku dayin adiga oo gaadhigaagu xawaare ku socdo inaad sheelarada aad u dhaqaajiso. ha isku dayin tartiib u dhaqaaji markaad baydhayso waayo gaadhigu xoog buu ku socdaa. haddii aad rabto
adigoo number 1 ama number 2 ama number 3 ku socda oo meel dariiq kugu filan ka laabaya xoogaa waad sameynaysaa kolba intii qiyaastaadu tahay. marka sheelarada maamulideedu waa waxyaabaha ugu fudud ee uu qofku marka ugu horeysa barto marka uu gaariga barashadiisa bilaabayo. taasina waxay ku xidhan tahay intee in leeg baad u baahan tahay inaad ku practice gareyso ama aad ku celceliso barashadiisa. maalinta koowaad, maalinta labaad, maalinta saddexaad waa laga yaabaa inaad la keento dad qofa wax in bay ku qaadataa maamulka sheelarada ama shukaantaasi. marka waxaan rajeynayaa su-aashaasina kolley inay intaa jawaabteedu tahay. waxa muhiim ah inaad iska ilaaliso markaad autobaanka ama highwayga ku jirto inaad gacantaada aad ay u dhaqaajiso shukaanta. kaliya waxaad u baahan tahay marka aad wadadan ka gudbaso aad wadada kugu xigta u gudbaso inaad blinkerka kolba dhanka aad u baydhaso bidix iyo midig aad shidato, aad muraayada dhexe iyo dhinaca aad u baydhaso aad eegto, kadibna shulter brick ama eegmada garabka aad samayso sidii aynu calaamadihii hore kusoo qaadanay. kadib tartiib adigoo mataqaanay gacantaada aan dhaqaajinayn, dhaqaaq waad dhaqaajinaysaa laakiin dhaqaaq aad u yar baad ku bedelaysaa. haddaad rabto inaad midig u baydho qaybta midig baad waxoogaa ishaada u badinaysaa adigoo iska eegaya gaariyada ku dhinac socda. tartiib ayaad gacanta qaloocinaysaa, kadib ada arkay doonaba adoo wadadii ka baxayba tii kala galay. laakiin ha isku dayin inaad sheelarada hal mar wada janjeeriso ama aad wada weeciso. su-aasha saddexaad, gaariga oo xawli u socda sidee loo joojiyaa ama geer hoose loo keenaa? taas waan ka jawaabnay ayaan filayaa, 2 jeer bay nagu soo noqotay. gaarigu xawli u socda waad joojin kartaa, waxba geer hoose uma baahna. dhowr nooc baad u joojin kartaa. hadday halis degdegi kaa hor timaado hal mar baad wada qabanaysaa clutchka iyo brake ood weliba gunta u dhigaysaa si xoog ah. markaasi waa in suunku kuu xidhan yahay, dadka kula saarana ay suunku u xidhan yahay. waayo haddii aad hal mar samayso taas waxaa la yidhaha gefaar bremse ama joojinta degdega ah ee halista lagaga istaagayo. taasina waxay u baahan tahay inaad mataqaanay xadhigu inuu kuu xidhan yahay, waayo haddii aanu qof idin ka mid a xadhig kuu xidhnayn oo aad sidaas samayso dadkaasi dhaawac ayaa soo gaari kara. saas waad ku joojin kartaa 5 ama 6 wuxuu doonaha ku jiro hal mar. waa markaad laakiin haliska istaagayso hal mar ayaad gaariga brake u qabanaysaa. markaasi waa marka ay tahay kaliya inaad ama qof ka badbaadinayso ku hormaray ama meel aad jiidhaysa ka istaagayso ama adigu halis kaa horeysa. taas markasta lama isticmaalo. laakiin markaad rabto isagoo 5 ku socda inaad aayar istaagto waxaad samaynaysaa brake aad waxoogaa sii qaboojinaysaa, waxba kublun ha taabanin inta hore ilaa intaad rabto inaad ku istaagto ayaad kublunka ku qabanaysaa. waxoogaa 100 baad ku socotay kasoo qaad, brake aad waxoogaa siinaysaa, brake aad waxoogaa kolba yara qabanaysaa. speedka gaariga ama xawaarihiisu wuu isdhimayaa marka ka dambeysa. markaad soo gaadho ilaa iyo 30, 20, 15, 10 meelaha markaad soo gaadho kublunkaad qabanaysaa, brakena waad qabanaysaa, gaarigu isagaa iska istaagaya tartiib. taasi waa taas. haddii aad rabto inaad geer kale ama kan ka badan gelisana sidii aynu su-aashii hore kusoo aragnay 1 markaad ku socoto waa markaad dhaqaaqayso ama aad hadda un dhaqaaqday waxoogaa gaas baad siinaysaa ama leebarka, kadibna 2 baad u gudbaysaa, saasaad wadaysaa. si kale haddii aynu u dhigno kaba soo qaad hal ayaad rabtaa inaad ku socoto si constanty ah ama si joogto ah. halkaasi waxaad u baahan tahay inaad speedkaagu uu dhexeeyo 0 ilaa iyo 9 inta u dhaxaysa hal waad iskaga socon kartaa. wixii intaa ka dambeeya 10 ilaa 20 inta u dhaxaysana 2 waad iskaga socon kartaa. 20 ilaa 35 ama 30 inta u dhaxaysana 3 waad ku socon kartaa. 30 wixii ka koreeyana 4 iyo 5 baad u isticmaali kartaa. taasina waa taas. su-aasha kale, sidee lagu ogaan karaa in gaariga speed ku jiro iyo inuu maran yahay? inuu gaariga speed ku jiro iyo inuu maran yahay waxaad ku kala ogaan kartaa. gaarigu wuu taagan yahay, waxaad rabtaa inaad dhaqaaqdo, dhexda ayaad keenaysaa, 4 dhinac waa inuu kuugu dhaqaaqo gaarigu. geerku ayaan ka wadaa halkan laga bedelo geerka, waa inuu 4 dhinacba si fudud uu kuugu dhaqaaqi karo. taasina way iska fududahay ayaan rajeynayaa. su-aasha kale, su-aashana dhowr qof baa soo qoray
midun baan kasoo qaadan doonaa sida speed joogto ah loogu wadaa gaadhiga, tusaale ahaan 50 ama 100. nin baa yidhi waxa igu adag inaan joogteeyo meeshii 50 layga rabay 70 ma gaadhsiinayaa, meeshii 100 layga rabay aduu waxoogaa isdhaaf noocaasaan samaynayaa buu yidhi. markasta wixii layga rabo waan ka badinayaa ama waan ka yaraynayaa. markaas taasi waxaan odhan lahaa kolley qof bila aadana tahay, macalinkaaga laftiisa taasi way ku dhacdaa mararka qaar, anigaygana igu dhacdaa, qof kastay ku dhacdaa adoo raba inaad 50 ku socoto inaad ka badiso ama aad ka yarayso. marka waxay ku xidhan tahay inaad isha ku hayso numberka aad ku socoto iyo kan gaaska ama gaadhiga laga wado leverka ama xawaare kordhiyaha loo yaqaano acceleratorka, kaasi unba maamula kolley inta badan. haddii aad 50 rabto ood leverkana hayso 50kii aad aragto isagoo sii dhaafayo 52, 53, 55 ku socda, gaaskun ka yara kac, leverkun ka kac, caadi tartiib uu soo noqonayaa, wuxuu imanayaa 50 markuu hoos uga sii dhacana waxoogaa afka u yara saar lugta, kadibna 50kiisii buu ku noqonaya. marka lugtaadan ka shaqaysi, iyaduna lafteeduna wax saa usii badan maaha. taasna saas ayaan filayaa inaan kaga jawaabay. su-aasha 6aad, aniga oon number 1 ba gelin 5 ma ku bilaabi karaa? jawaabtaasi waa maya, waayo gaadhigu sidiisaba number 1 ayuu ku dhaqaaqaa. number 1 haddii aanad gelin 5 haddii uu ku jiro ood istaadho gaadhiga aanad damacdo inaad dhaqaaqdo, isla markaa buu kaa damaya, waana boodaya gaadhigu. marka 1 waa lagu dhaqaaqaa, 1 baad u baahan tahay markasta, 5 inaad ku dhaqaaqdo ha isku day. okay, su-aal kale, ninkan dhowr su-aalood oo isku xiga ayuu soo qoray. su-aasha kusii xigtana wuxuu yidhi gaadhiga ma boodsiin karaa geerkiisa, anigoo tusaale ahaan 3 ku socday 5 ma u boodi karaa oo ma u bedeli karaa geerka? yacni gaadhigii baa socda, 3 baan ku wadaa, waxaan rabaa inaan u boodo isla markiiba number 5 oon 4 ka boodo. waad samayn kartaa oo wax dhiba ma laha. aniga lafteedu mararka qaar ama inta badan waan sameeyaa, laakiin marka aan sameeyo waxa weeye marka aan autobanka ama highwayga gelayo number 3 ku socdo. markaad galayso number 3 baad ku galaysaa, gaadhiga xawaarihiisa aad baad u kordhinaysaa si aad u gasho qaybta weyn ee baabuurta socdaan. marka gaadhigan aad wadadiisa geli rabto waxaad rabtaa inaad ka dheerayso ka hor gasho, marka waxay kugu qasbaysaa adoo 3 ku soo galay inaad ilaa 60 70 ku erido. markaasoo kale waan ka boodaa 5 baan toos u geeyaa. marka waad ka boodi kartaa, laakiin mid kasta maaha. okay, intaas waxay inoogu eg qaybtii su-aalaha. qaybta labaad aan rabay inaan idiin soo bandhigo waxa weeye weydiintii ama su-aashii aan idin soo weydiiyey. waad ku mahadsantihiin horta dhammaantiin saad uga qayb qaadateen. su-aashii aan idinla soo wadaagay qaybta communityga aan soo dhigay ee ahayd qaybta technologyga ma inoogu soo daraa, ma furashan keliya ama liisan keliya ayaynu sii wadnaa mise labadaba? marka resultigii ama jawaabtii kasoo baxday ayaan halkan idinkula wadaagaya, waana tan. waxa weeye inteeda badan saad u jeedaan waxa badan intii qaybta technologyga lasoo kordhiyo. qaybtan kale ee ah mid uunba ugu yar, furashanka keliya noogu wadaa ugu yar. okay, midda 3aad ee ah labadabana iyada lafteedu waa iska fiican tahay oo tiro fiican baa iyaga laftooda kasoo qayb qaadatay. markaasi aan iskugu dibaridno ama aan barnaamijka iskula keeno taas hoose iyo tan dhexe iyo tan sare, intaaba waxaan kaga gudbi karnaa insha Allah. waxaan isku dayi doonaa inaan isku dhex wado si uu qof walo kanaalkan ku xiran uu uga heli karo wixii uu rabay. qaybta tiknoolajiyadana insha Allah waxaan kasoo diyaarin doonaa barnaamijyo. haddii ay jireen waxyaabo hore oo diyaarsanna waan kusoo tuuri doonaa insha Allah. markaas qaybta tiknoolajiyadana weegaga soo socda insha Allah waan kusoo daranaa. qaybtan furashaynkana ama liisanka gaadhiga ama barashada calaamadaha dariiqa iyagana insha Allah waan isku dhex wadi doonaa. wixii aad su-aal ka qabtaan ee aad mataqaanay ka keentaan insha Allah waan kasoo jawaab celin doonaa. dhammaantiin waxaan leeyahay muuqaalku intaas ayuu noogu egyahay. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
dhammaantiin waa idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.